dhagaystayaal tan iyo markuu garaadsaday waxaa wiilwaal ka go'nayd inay caddaato rag oo idil inuu isagu ugu awood roon yahay welibana ugu garasho badan yahay sidaas awgeed wuxuu filan jiray cirka iyo dhulka meel dhexdooda ah in laga wada eego xilliyadii hore ee ina garaad faarax loo yiqiin iyo markii inta la caleema saaray uu garaad xirsi noqday kadib muddadii uu noolaa oo dhan sheekooyinkii dhulka soomaalida la isaga warin jiray waxay u badnaayeen isaga iyo wacdarihiisa isaga iyo xujooyinkiisa isaga iyo feejignaantiisa wuxuu ahaa nin si aada u rumaysan hubka wax la isaga rabo oo qurihi inuu yahay waxa awoodda lagu xagsan karo ee dadweynaha uu u taliyo uu ruuxa madaxda ahi tiisa ku yeelsiin karo wuxuu ahaa badbaadada noloshiisa nin aan cidna ku hadlayn oo dadka wixii gacal u ah iyo wixii aan u ahaynba isku si isaga ilaaliya qalabkiisa dagaalka ayuu dhab u aaminsanaa naftiisa iyo boqortooyadiisa labadabana isaga ayuu gaashaan uga dhigtay arrintaana waxaa loo heli karaa tusaalayaal fara badan madaxdaygase waxaa ugu darayd wiilwaal iyo wadaaddo dhacdadii la baxday taasoo aynu ka garan karayno meeshii fogayd ee qalabka dagaalku uu kaga yeelay waxaa la yidhi maalin maalmaha ka mid a ayuu aqaladiisa wuxuu ku marti sooray wadaaddo dhowr iyo 10 oo ka tirsanaa dadkii uu u talin jiray iyo qaar degmada dool ku yimid labadaba aqoonta diinta oo ay ka sinaayeen ka sokow waxaa ku jiray qaar xaaje hebel loogu yeero oo taa awgeedna si weyn ay bulshadu ugu maamuusi jirtay si wanaagsan iyo sidii nin garaada lagu yiqiin ayuu u sooray laba intuu u fariisiyey ayuu ka dhargiyey hilbihii wanka oo qaarba si gooni ah loogu wanaajiyey araggiisa oo qura bariis ay gaajadu ku ba'do oo geed adari laga buuxiyeyna uu hordhigay dhay suusac iyo karuur caanihii geelana wuu ka durduuray oo martida cad iyo caano oo keliya laguma sooree midhax iyo jalbeebna waa loogu iidaamaaye intuu weji furan la dhex fadhiistay ayuu u deexday ilaa ay cunnadii ku degtay oo intay hurda qabatay ay wada lulmoodeen ha yeeshee inay duceeyaan oo keliyihii markay u hadhay markay u faarumaysteen inay reerka ka ambabaxaan ku walibana uu qoyskiisii u carraabo ayay wiilwaal wax ku soo kordheen waxbaa ku soo dhacay hadal kale oo dhan intuu si kadiisa u joojiyey ayuu wadaadadii dabin ku dhaygaga wuxuu arkay samaley warmale inay wada yihiinoo aan lagu arag mid keliya oo haysta waran ama seef ama ableytoona markaas buu intuu ka yaabay kula soo booday su'aal aanay filanayn weligoodna aan cid kala haybin wuxuu ku yidhi oo wadaadow wax la isweydiiyaa ma xumee horta qalabkiinnii dagaalku mee haddiise la idinsoo maago yaa dadka idinka celinaya midkood baa kolkaa af carbeed ugu jawaabay oo ku yidhi naxnu mutawakkiluun cala allah oo uu ula jeeday annagu eebbe ayaannu tala saaranaayoo cidna kama baqno dabadeedna iyagii oo aan weli halkoodii ka kicin ayuu wiilwaal aqalkii dibadda uga baxay in yar hadduu ka maqnaa oo uu ku soo noqdayna waxay ka maqleen wax ay la wareereen wuxuu ku yidhi awyaalow intii aan idinka maqnaa waxaan sabada la taagnaa xidiga sheeg waxyaqaan ah aniguna aan ku kalsoonahay wuxuu ii sheegay in naftaydu ay halis ku jirto oo dhibaato aan ka soo waaqsi lahayn ay igu dhacayso haddii aanan dilin wadaadadiinna halkan fadhiya midkood kolka si aanan dhammaantiin idiin warjeefin waxaa ila habboon inaad iska soo saartaan wadaadkii aan gowrici lahaa arrintuna ogaada oo waa degdeg haddiiba wadaad ka mid ah ayay soo muquuniyeen intay farta ugu fiiqeen kii oo argagaxsan buu sidii ari iideed intuu dhegta u soo qabsaday dibadda ula soo baxay oo wax ma yeeline aqaladiisa midkood dhex fadhiisiyey isla markiibana tooraydiisii intuu galka kala soo baxay ayuu sabeen meelaha taagnayd ku gowracay isaga oo tooraydii gacanta ku haysta dhiigguna uu ka tifiq leeyahay ayuu wadaadadii ula galay markaas buu ku yidhi awyaalow xidiga sheeggii wuxuu haddana igu yidhi waa inaad wadaad labaadna gowracdaa haddii kale badbaadi maysid kolka waxaan idinka rabaa hadalkii oo aan weli afkiisa ka soo dhammaan ayay sidii loo gadooday dhagax yidhaahdeen naftaa macaane ilidii uu ku hortaagnaa ayay isku buurteen iyaga oo kutubtiina gooshii kaga tegey kabihiisii mid iladayna aan lagu arag argagax baa dhammeeyey ku waliba hortiisa ayuu u cararay isaga oo aan garanayn halkay caguhu
ku simi doonaan. waxay sii cararaanba markuu istusay inay xuurto la dhaqaaqi la'yihiin oo qorraxdiina ay baalka sii dhiganayso ayuu wiilwaal wuxuu ka daba diray dhallinyaro fardooley ah oo reerka ku soo celisa. kuwaas ayaa midba meel ka soo helay, iyaga oo ka dhaadhiciyey garaadku inaanu wadaadkii hore dilin, iyagana dili doonine uu arrinta xujo uga dan lahaa, xujo uu ku muujinayay in qalabka dagaalku uu ragga lama horaan u yahay, hadduu wadaad yahay iyo hadduu waran la yahay labadaba. iyaga oo cagamurux la ildaran asii dhagadhan ayaa aqalkii garaadka lasoo hordhoobay. dabadeed markay daal tirteen oo ay dadadii ka ba'dayna wuxuu ka wada simay deeq fara badanoo wuxuu ku markaday ay ku iloobeen. wadaad haddaba culimmadii maalintaa ku jiray oo ay muuqato in tusaalihii garaadku uu ku duxay ayaa waayadii dambe waxaa la arki jiray mar walba isaga oo gacanta midig ee waran deelaysan ku wata, isla markaasna kitaabka qur-aanka ahi uu garabka uga laalaado. maalin dambe ayaa ina dhallinyari wuxuu ku yidhi, awgayow labadaani ismaba lehee maxaad u wada sidataa, maad mid iska dhigtid? wadaadkiina wuxuu ku jawaabay weer uu inankii la yaabay asuu wiilwaal madaxa u ruuxi lahaa. waa weedhii ahayd, maandhow kitaabkana eebbaan u sitaa, warankana aadane.